Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. This is Sahra Siraad. Waa walaasheen Ummuna iyo mar kale. Caawa waxaa miiska inoo saaran axima. Aximada ku dhacda caruurta ama dadka waaweynba. Inta badan aximada waxay ku dhacdaa caruurta boqolkiiba 20 percentage ahaan dadka waaweyn boqolkiiba 3. Dadka waaweyn waxaa laga yaabaa in ay kasoo raacday xilligii caruurnimada ama waaba wax ku imaan kara ruuxa isagoo weyn. Aximadu waxay ka mid tahay waa qayb ka mid ah sida allergiga oo kale. Haddaba waxaa saacidi kara ama kicin kara aximada qofka waxyaabaha uu cuno ama environmentiga waxyaabaha dhastiga moolka guriga ka dhalan kara ama oomada dharka loogu dhaqo caruurta ama saliidaha shaambooyada iyo waxyaabaha jirka la marsado. Intaba waxaa laga yaabaa in uu qofka mataqaanaa waxyaabaha qaarkood ay ku kiciyaan. Marka hore inta qofka uusan bilaawin treatmentigeeda inta uusan bilaawin waxaa dhinac socota qofka in uu fahmo waxyaabaha kusii kicinaya ama kusii badinaya isagoo u sameynaya haddii uu yahay ilmo yar oo caruur ah. Waa inay hooyadaasi fiirisaa daily intaga ilmahaasi waxyaabaha hadduu qaato cuntooyinka haddii uu qaato aad iyo aad rashkaas ay zaa'id ay usoo baxayaan ama maalmaha ay degsan yihiin waxa uu cunay ilmahaasi. Inkasta oo mararka qaarkood weatherka kala duwan ee isbedelaya iyada laftirkeeda qayb uu ka qaadan karo. Haddaba waxyaabaha loo isticmaalo aximada in ay mataqaanaa dejiyaan ayaa waxaa ka mid ah malabka loo yaqaano munuka iyo mataqaanaa malabkaas qayb weyn uu ka qaataa isagoo loo marinayo ilmaha sababtoo ah malabka waxa uu leeyahay oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray antibacteria waxyaabo la dagaalanta bakteeriyada. Isla mar ahaantaasna wuxuu u keenayaa skinki inuu noqdo shiny inuu noqdo oo skinki inuu nuuro inuu skinki mataqaanaa maqaarkii inuu ka damo qolfihii kasoo kacayay ama waxyaabihii keeni karay in uu cuncuno. Waxaa kale oo iyadana loo isticmaalaa saliidda loo yaqaano rose hip oil ka iyadana sidaas oo kaleeto waxay dejisaa skinka oo dry ah ama qaleylka noqonaya ayay dejisaa oo ay ka dhigtaa mataqaanaa soft ay ka dhigtaa. Waxaa kale oo u isticmaali kartaa coconut oil oo ah saliid naarajinta iyadana ama saliidda qumbaha hadba sida loo yaqaanaba iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha dejin kara skinku in uu noqdo dry in uu noqdo ama qaleyl in uu noqdo. Waxaa kale oo door weyn ka qaata aloe vera oil aloe vera maxaa la yiraahdaa dacarta haddaba waxaa gudaheeda ku jira marka la kala jeexo gel baa ku jira gelkaas marka la marsado oo ilmaha loo mariyo ama cabitaan ahaanba uu ku qaato waxaa laga yaabaa in ay mataqaanaa xagga hoose ahaana ay kasoo caawiso vitaminiska ay haysata awadeed xagga korona mataqaanaa loo isticmaalo sidii mataqaanaa creamkii oo kaleeto. Waxaa kale oo asagana mataqaanaa maasha Allah ah saliid saytuunta iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qaada qolofta cuncuna hoos u dejiya waliba waxay u baahan tahay in mataqaanaa markaas wax yar inta la diiriyo saliid saytuunta lagu soo qaado shukumaan yar oo qalalan markaasna lagu apply gareeyo meeshii cuncunaysay ama meeshii mataqaanaa qolfuhu ay ku badnaayeen ama ay ku badnaa aximada ay ku badnayd oo nabaradii iyo wixii oo dhan ay ku wada yaaleen oo casayd in mataqaanaa looga xaqo. Waxaa kale oo isagana maasha Allah caawini kara cocoa butter-ka isagana mataqaanaa maasha Allah waliba mid kale vitamin E ga leh isagana si gooni u sii caawiyaa si uu mataqaanaa jirkii qofka marka uu soo qabaysto ama ilmaha marka loo qabeeyo isaga oo qoyan in durba mataqaanaa lagu apply gareeyo oo meelihii ay kasoo baxday oo dhan la saaro. Waxaa kale maasha Allah oo isagana mataqaanaa
caawini karaa maxaa la yiraahdaa oatmealka boorashka in wax yaroo biyo ah inta lagu dhigo dabadeedna lagu daro dhowr qaado oo malab ah oo laga mariyo meeshii uu saarnaa agsimada. Qofku wuxuu u baahan yahay inuu maalintii qaato 8 galaas oo biyo ah ugu yaraan, amaba maxaa la yiraahdaa wuu cabi karaa jeelka uu ka samaysan aloe vera jeelka uu ka samaysan karaa juice, ama waxayba jirtaa iyadoo samaysan wadamada North America oo markaas uu qofku uu ku darsan karo juusaska kale ama waxyaabaha uu shiidanayo si ay extra mataqaanaa jirkiisa ay ugu noqoto. Also wuxuu isticmaali karaa qofka wax yar oo ah liin dhanaan iyo malab intuu isku daro meelaha zaa'idka u cuncunayana wuu ku xoqi karaa, oo taasna ijigii iyo cuncunkiina way ka baabi'inaysaa. maasha Allah. ilaahay subxaanahu watacaala ha inagu anfaco inta haysana. ilaahay subxaanahu watacaala daawada meel soka Allah u soo saaro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.